siyaasi cabdiqani salaf oo kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid oo maanta si gaar ah ugu waramay Ariel TV ayaa waxa uu ka hadlay arrimo door oo ay kamid yihiin in qaar kamid ah warbaahintu aanay dhexdhexaad u ahayn xisbiyada ku loolamaya hanashada hoggaanka dalka siyaasigu isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri saddexda xisbi qaran wicid wadani kulmiye waa saddex xisbi oo qaranku iska leeyahay marka wuxuu sharcigu dhigayaa in waqtiga ololaha loo sinaado iyo waqti kastaba warbaahinta oo waqti isku mid ah saddexda xisbi laga siiyo warbaahinta maanta waxaad moodaa warbaahintii qaranka oo ay ugu horeyso radio Hargeysa iyo TV-ga qaranka iyo jaraa'idkii Dawan in si gaar ah loo siiyay looguna hibeeyay xisbiga kulmiye waa mid kamid ah saddex xisbi ee tartamaya xisbil xaakimkii ahaado oo xukuumadda maanta jirta ha ku abtirsato laakiin sharcigu wax dheeraada ma siinayo dadka kale waxa eedeymo kulul u soo jeediyay wasiirka wasaaradda warfaafinta Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani oo sheegay inuu ka mas'uul yahay in warbaahinta qaranku u leexato xisbi xaakimka talada dalka haya ee kulmiye isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri ku-xigeenka warfaafinta iyo wasiirkuba ay doonayaan inay iska leexiyaan eed ay leeyihiin oo ah warbaahintii qaranka in habeen iyo maalinba loogu ololeynayo musabixi iyo xisbiga kulmiye iyadoo labadii xisbi ee qaran ee ucid iyo wadani la ilaabay haddaba su'aasha weydiinaya wasiirka iyo warbaahinta qaranka waxa weeye labada xisbi ee ucid iyo wadani ma ajaanib ah miyaana qarankan Soomaaliland wax ku lahayn qaybtoodii warbaahinta ay ku lahaayeen meeday haddii sida ugu dhaqsaha badan leh arrintaa wax looga qaban waayo oo xukuumadda maanta talada haysaa ay uga qaban weydo tallaabo sharciga waafaqsan oo waqti isku mid la siin waayo waqtiga kaambeynka saddexda xisbi qaran waxaan ugu baaqayaa labada xisbi ee mucaaridka ah xisbiga ucid oo anigu aan ka tirsanahay iyo xisbiga wadani in ay sameystaan warbaahin u gaara radio u gaara oo ay waqtiga ololaha doorashada ku galaan Liibaan Cismaan Cali Ariel TV Hargeysa